Qadar Cabduqaadir Cabdulle oo dhawaan magaalada Baydhabo ka bandhigay tijaabada iska ama dheefto xoolo iyanka dambeyntii waliba uu sageeyay ku faa'iideeyay xoolo abaaro saameeyay ee magaalada Baydhabo. Qadar oo ku mid ah aqoon-yahanada dhalinyarada ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo waliba uu tijaabada iska ama dheefto xoolo uu sadeersiyay xoolo iyo abaaro saameeyay ee la xanaanayo duleedka magaalada Baydhabo. walibana tijaabada iskan yaanaga tayto uu sawiinka guuleysiday markii iskan uu si dadka xoolo dhaqatada ee ka nool duleedka magaalada Baydhabo iyo waliba hayo sawiin handhawaayana waan mahadnageena kuriikan dhalinyarada ee Qadar Cabduqaadir Cabdulle walibana iyo markaas sheegan intii oo sawiinka mahadnagaayeen Qadar mahadnagaan company daryeel dilinin ko dirajeen iskantii helal linin ku badbaadi laninsi intii isbadan lanin sheeno fadaan maadaama helay baba mahadnagaan dhalinyartan keen mahadnagan saasoo kale Qadar oo suuna meel ku hadalay yameeba uu sheegay intii uu arintan sii wadi doon maadaama iyo walwiinku taraasa badbaadiyowka xoolo abaaro saameeyeen maanta ay tahay maalin axad oo Ramadaan galab tahay waxaan joognaa duleedka magaalada Baydhabo runtii waa u jeedaan boorkan gadaalkii waxa waaye daryeel company-ga daryeel u jeedaan waa company-ga soo saara calafka xoolaha runtii waad ogtihiin maalin dhaxdaas waxa soo bandhignay cooska ayaa soo bandhignay maanta waxaan wadnaa cooskii ayaan xoolaha siinayna waad u jeedaan markaan waxaan rajaynaynaa xoolaha in la badbaadiyo maadaama ay tahay abaar lagu jiro markaan waxaan codsanaynaa bulshada Soomaaliyeed inay macnaha walaalahooda caawiyaan ay garab istaagaan xoolihii way ka baaba'een markaan waxa loo baahan yahay in inta yar xoolaha u harsan in loo badbaadiyo ayaan rajaynaynaa waxa waaye ani kaligeyga ayaa maalgelinay waxa waaye lacagta hadii loo investmentiga iyo waxa lahay iyo aqoon runtii waxaan hadii programkan leega saacido oo leega caawiyo runtii waxa waaye waxaan sameyn karaa intaan in ka badan ayaan qaban karaa marka waxa leeyahay programkan ummadda waa in lagu dhiirigeliyaa runtii aqoon-yahanada waa in la taageeraa runtii wax la soo xiriiray ma jirto wali waxa waaye programkan saad ogtihiin waxa waaye markii hore waa soo bandhigay haddana tijaabadii waxa waaye labaad ayaan sameeyay maanta waa u jeedaan dawladka magaaladan joognaa waxaan siinay waxa waaye waa xoolihii ayaan siinayna u jeedaan markaan xoolihii waxay u yihiin nafaqa ahaan u yihiin markaan waxa u baahanahay inta harsan oo xoolaha hadda joogan in la siiyo waxa waaye maadaama dadkii xoolihii ka baaba'een markaan waxa u rajaynaynaa company-gan inuu noqdo company-gii oo waxa waaye soo saara calafka xoolaha hadda garab helno waxa waaye waxa laga yaabaa inaan gaarsiino tuulooyinka inaan gaarsiino cooskan runtii programkan waxa soo bandhigay Jubbaland xildhibaan xidig runtii waxa waaye waa lagu taageeray anagana waxa leenahay reer Koonfur Galbeed ahaan programkan in la dhiirigeliyo oo lagu taageero oo garab la siiyo sida loo badbaadin lahaa xoolo dhaqatada ku nool magaalada Baydhabo maadaama aad arkaysiin xilli abaar lagu jiro aad arkaysiin xoolihii baaba'ayaan waxaan leeyahay in walaalaha loo istaago oo garab la siiyo oo xoolahooda la badbaadiyo ayaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu baaqaynaa insha Allah sakastaba haato Qadar Cabduqaadir Cabdulle oo baraday maadada beero isla markaasna qayb ku ah dhalinyarada firfircoon ee deegaanada Koonfur Galbeed iyo waliba uu saawade qorshe laga badbaadiyo xoolo abaaro saameeyay Cabdi Casiir warbaahinta Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.